بسم الله الرحمن الرحيم أنا بروفيسور عبد الصمد إبراهيم لقي وأحمد حوينة هاود الستيت وحان هالكن بانتا وصو فريستي إن أنشر جرائد كقبلنا وأنشر كجرائدنا كنتي كقادنا بالمعلومات دنبا وحي دول كيجا iyo ummadayada runtii wixii ka dhacay ka socday waxa weey sidaad ogtihiinba dawladda Soomaaliyeed waxa marka ugu horeysaan ka codsanaynaa inay waajibkeedii ka soo baxdo gobolka Awdal waa gobol kamid ah ummadda Soomaaliyeed waa gobol marna aanan oran anigu Soomaaliya waan ka go'aanahay waa gobol had iyo jeer muujiya oo runtii tixgeliya ummadda Soomaaliyeed waa gobol u baahnaa in la isgarab taago waa gobol maxaan ku yiraahdaa mas'uuliyadiisa runtii la dayacay dawladda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa in wada hadal la qabanayo wada hadalkaas oo dhexmaraya dawladda Soomaaliyeed iyo qolada waqooyiga degan ee la anagu waxaanu nahay Somaliland waxa weey dawladda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa wada hadalladaasi wada hadallo aad beel la galaysaan haddii ay beel xamar joogtaa beel la galayso maxaan ku dhahay waqooyiga joogta taasi iyaga ayay khusaysaa waxa weey arrimaha iyo masiirka ummadda waqooyiga degan ee Soomaaliyeed lagalama hadli karo maxaan ku dhahdaa hal qolo oo had iyo jeer rabtay iyadu inay ummadda Soomaaliyeed burburkeeda ka shaqeyso annagu haddaanu nahay gobolka Awdal haddii waliba aad rabto gobolka Khaatumo iyo gobolka Maakhir ummadda inta leega Soomaaliyeed waqooyiga ku degani intuba waxay runtii u helayeen Soomaalinimo laakiin wayna daagtaan ninka Soomaaliyeed shucuurtiisa ninka Soomaaliyeed ee degan waqooyiga shucuurtiisa iyo maxaan ku raahdaa waxa uu baahan yahay waxa weey arrimaha laga wada hadli doona annaga nama khuseeyaan horana noomay khuseyn jirin dawladihii horena beel bay la hadli jireen imikana beelun ba hadallada rabta annaga Soomaalinimadaydu gorgortan kuma jirto cid allaaliye cid Soomaalinimadayda lagala hadlayaana ma jirto Soomaali baanu nahay maantaan nahay berri baan ahaan doonaa abadan baan Soomaali ahaan doonaa Soomaalina kama go'ayno laakiin maxaan rabnaa dawladda Soomaaliyeed ee uu maxaan ku raahdaa madaxweyne Farmaajo uu madaxweynaha ka yahay ee uu Prime Ministerna khayr ka yahay oo annaga dawladda aan aqoonsan lahayn ictiraafsan lahayn ee dawladda ka wakiilka gobolka Awdal waxa aan leenahay inaad mas'uuliyadiina ka soo baxdaan min fadlakum waa inaad ixtiraamtaan Soomaalinimada annaga isku filan annaga hawlaha iyaga hoose ka soo baxayna laakiin sharciyada guud ayaa la idinka rabaa idinku inaad mas'uuliyadeedii ka soo baxdaan taasi waxay cadeynaysaa in ummadda Soomaaliyeed ay mid tahay waxay cadeynaysaa inay ummadda Soomaaliyeed cadaalad ka jirto waxay cadeynaysaa geesinimada dawladda xamar jirta geesinimadeeda ayay cadeynaysaa iyo dadnimadeeda qodobkan labaad waxaan la hadlayaa ummadda reer Awdal waxaan la hadlayaa gaar ahaan ummadda dhalinyarta waxaan la hadlayaa ummadda mustaqbalkeedii waqti badan ka haray lama hadlayo nimanka maxaan ku dhahdaa Hargeysa lacagta u doonta lama hadlayo nimanka maxaan ku dhaqaalaha halka laga siiyo lama hadlayo nimanka ay maslaxadoodu ku jirto in ummadda Soomaaliyeed ummadani Awdal ay dulli runtii huwanaato walaalayaal professoradii maxaan ku dhahdaa oran jiray cadaalad baa jirta kuwii oran jiray waxba la qaybsanaya kuwii oran jiray dastuur baa jira kuwii oran jiray saami qaybsi baa imanaya wax halka ay maanta ku dambeeyeen waad arkaysan taasi waxay idin tahay tusaale si aad maxaan ku dhahdaa mustaqbalkiina wax uga bedeshaan maanta waxa idin muuqata in waqooyigu kala qaybsan yahay jeegan iyo ummadda inteedii kale waxaad arkaysaan inaanan maxaan ku dhahdaa maamulka halka joogay maamulka isku sheegaya aanu cidnaba naxdin u galay halka uu idinku wadana waxa weey hadda way idin muuqataa waxa weey walaalayaal dhalinyarta waxa soo socota halgan adag bay noo socda oo inoo bilaabmaya halgankaasi waa halgan adag oo isku xoreynayno halgan dagaal bay noo bilaabmaya dagaalku nooc kasta uu leeyahay midna ka gaabin mayno ku siyaasadeed ku dhaqaale ku diriireed ku hubeed ku difaaceed mid walba waan galaynaa waxaan idinka codsanayaa inaad diyaar garowdaan
ummad kasta waxay jirta xilli ay u baahan tahay inay isdifaacdo oo ay nolosheeda iyo sharafkeeda iyo dadnimadeeda iyo dhaqaalaheeda iyo nolosheeda difaacdo markii baa la soo gaadhay halkaa haddii ummadeennu ay sii dhaafto meel aan hagaagsanayn bay ku socotaa in laga soo qabto weeyi ummad kasta rag bay leedahay waxaan idinka codsanayaa inaad diyaar noqotaan insha allahna waad arki doontaan maxaan ku dhahdaa halgankaasi bilaabistiisa waad arki doontaan dhawaanna waan bilaabi doonaa insha allah marka waxaan anigu ku gabagabeynayaa hadalka inaad diyaar noqotaan inaad difaaciina diyaar u noqotaan inaad mustaqbalkiina diyaar u noqotaan in aad maxaan ku dhahaa sharafkiina soo saartaan wassalaamu calaykum